bismillahi raxmaan raxiim kula wacana wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka dalsan muqdisho waxaan kasoo gudbinayaa barnaamij faaqidada ciyaaraha waa sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 bisha July sanadka 2025 warbixinada daqiiqadaha soo saaxiibada barnaamijkan kusoo qaadan doono waxaan qayb ka ah kooxda kubadda cagta Arsenal oo maanta u duuleysa Aasiya si ay kaga bilowdo ciyaareedka isku diyaarinta ciyaareedka cusub ee 2025 iyadoo aan wadin wariyaankeeda muddada dheer ay doonaysay Viktor Gyokeres sidoo kale waxaa soo qaadan doona caqabadaha ugu dambeeya ee iibka laacibkan oo heesta oo shaaca laga qaaday waxaa kaloo soo gudbin doona kooxda kubadda cagta Arsenal waxa ay heshiis 5 sanadood ay ka saxiixatay لاعبkeeda da'da yar ee Isan Inwaneri barnaamijka ayaa saaxiibal ku soo qaadan doona warbixinada kale barnaamij saaxiibyaal ku soo qaadan doona waxaa qayb ka ah koorta ee kooxda kubadda cagta Manchester United tijaabada caafimaadka uu marayo laacibkeeda cusub ee Bayern Mbomo oo shaaca laga qaaday xilli labada kooxood Brentford iyo Manchester ay iibka laacibkan ka wada heshiiyeen warbixinada kale saaxiibyaal aan soo gudbin doono waxaa qayb ka ah kooxaha Chelsea iyo Arsenal waxay isku haystaan qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig ee lagu magacaabo Xavi Simons barnaamijka ayaa saaxiibal ku soo qaadan doona sidoo kale waxaa soo gudbin doona kooxda kubadda cagta Manchester City waxay doonaysaa golayo cusub kaasi oo doonayso in ay ku bedelato golayaha haatan jooga ee Anderson Warriors kama marna wargeysada waxay ka soo qorayaan suuqka ciyaartooyda aan soo bilaw saaxiibayaal barnaamijka faaqidada ciyaaraha Dalsan TV kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa maanta waxay u duuleysaa dhinaca iyo Aasiya halkaasi oo ay ka bilaabi doonto xiliyaareedkeeda isku diyaarinta 2025 iyadoo markaas aan wadanin wariyaanka Viktor Gyokeres oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee kooxda kubadda cagta Arsenal dhinaca weerarka kooxda Arsenal ayaa waxay u duuli doontaa safarkeeda isku diyaarinta xiliyaareedka cusub 2025 dhinaca Aasiya iyadoo aan dhameystirin saxiixa wariyaanka Viktor Gyokeres taasoo niyad jab weyn ku ah tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta saxafiga caanka ah Fabrizio Romano ayaa faahfaahin ka bixiyay caqabada ugu dambeeyda ee loo baahan yahay si loo xaqiijiyo heshiiska laacibka reer Sweden Gunners ayaa si xamaasad leh uga shaqeynaysay sidii ay isugu dayi lahayd una dhameystiri lahayd saxiixa kulaliyaha reer Sweden kadib markii agaasimaha ciyaaraha kooxda Arsenal Andre Berta uu ku qanciyay Mikel Arteta inuu ka tanaasulo xiisihii muddada dheer uu qabay ciyaartooyda Benjamin Sesko si kastaba noqotee in laga heshiiyo wariyaanka Sport Lisbon waxay noqotay mid aad u adag toddobaadyo wada hadal ah kadibna labada kooxood Gunners iyo Sport Lisbon ayaa ugu dambeyntii waxay ku dhawaayeen abkan waxaana ay ku heshiiyeen xirmo qiimihiisu yahay 73.6 milyan oo lagu darayo 10 milyan oo u dhiganta 8.6 milyan balse ilaa hadda waxaad moodaa in heshiiskaasi uusan dhaqan galin Gunners waxa ay seegtay kama dambaysta laacibkan ciyaartooyda dowladda jirka ayaa waxa loo badinayay inuu Arsenal ka mid noqonayo ciyaartooyda maanta ula safraysa Aasiya halkaasi oo ay ku soo qaadan doonto isku diyaarinta xiliyaareedka 2025 sida laga soo xigtay Ebola oo ka soo baxday Portugal Gyokeres waxa uu ku hadlay ama uu ku haray Sweden mana ka mid noqon doono safarka Gunners ee maanta baxaya iyadoo kulankooda ugu horeeya loo qorsheeyay Arbacada soo socda in la ciyaarto kooxda kubadda cagta AC Milan haddii Arsenal heshiis la gaarto Viktor Gyokeres waxa uu baahan doonaa inuu sugo ilaa 6 bisha Agoosto ee soo aadan markaas oo ay Arsenal martigelin doonto Villarreal kulankooda ugu dambeeya ee isku diyaarinta xiliyaareedka 2026 ciyaar markaas sidii ka dhici doonta garoonka Fly Emirates xilliga ayuu noqon karaa laacibka Viktor Gyokeres inuu Arsenal u ciyaaro kulankiisa ugu horeeya waxaana uu noqon doonaa kulanka ugu dambeeya Arsenal isku diyaarinayso xiliyaareedka 2026 caqabado kala duwan ayaa hareeyay iibka laacibka Viktor Gyokeres iyo inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta Arsenal dhibaato kastaana waxay ka jirtaa dhinaca kooxdiisa Sport Lisbon iyadoo kooxda mar walbaba wiji cusub ula imaanaysa kooxda kubadda cagta Arsenal caqabadii ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan in Viktor Gyokeres kooxdiisa Sport Lisbon ay codsaday in lacagta kala looga darayo ee ah 10 milyan in Arsenal ay ku bixiso 2 xil ciyaareed ama 2 sano gudahood Arsenal waxay rabtaa in ugu yaraan 5 sano ee uu saxiixayo laacibka Viktor Gyokeres in lacagtaasi 10 milyan ah ay ku bixiso balse madaxweynaha Sport Lisbon daawa uu ka biyadiiday yahay waxa uu dalbanayaa in 2 sano gudahood lacagtaas lagu bixiyo sidoo kale Sport Lisbon waxay iyaduna wataa caqabad kale oo ah in xitaa ay dalbanayso lacag dheeraad ah oo 10 milyan ka dheer maadaama Viktor Gyokeres uu yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxdooda isla markaana kulamada isku diyaarinta iyo sidoo kale tababarkuba uu ka maqan yahay taasna ay caqabad weyn ku noqotay kooxda isla markaana ay ku weeday qarashaad badan oo dhinaca iyo xayeysiimaha kooxda ka soo gali lahaa caqabado kale ayay wataa kooxda kubadda cagta Sport Lisbon mar walbana caqabada ugu badan Arsenal waxay kala kulmaysaa kooxdiisa oo mar hore ayay ciyaartooydan
wada heshiiyeen isla markaana Arsenal ayuu isagu u sheegay inay tahay kooxda kaliya ee uu rabo. Dhinaca kale kooxda Arsenal waxaa iyaduna heshiis cusub ay ka saxiixatay taayirkeeda lagu caabo Ethan Nuneri kaasoo muddooyinka ugu dambeeyay ahaa mowduuc weyn oo dhinaca Emirates laga soo warinayay. Arsenal ayaa laacibkan ugu dambeyntii waxay ka saxiixatay heshiis 5 sanadood ah kaas oo ku sii hayn doona garoonka Fly Emirates ilaa 2030 laga gaarayo. Laacibkan ayaa sidoo kale waxaa xiiso weyn u geeliyay kooxda Premier League oo ugu horeyso kooxda kubadda cagta Chelsea. Arsenal ayaa ugu dambeyntii shaacisay heshiiska rasmiga ah ee laacibkan tada yar ay ka saxiixatay Ethan Nuneri. dhanka kale kooxda kubadda cagta Manchester waxaa shaaca laga qaaday koorta uu tijaabada caafimaadka u marayo laacibkeeda cusub ee Bayern Mbumo kaasi oo kala soo wareegtay naadiga Brentford xilli maalintii shalay ahayd labada kooxood Brentford iyo sidoo kale Manchester ay ka heshiiyeen qiimaha rasmiga ah ee laacibkan uu ku imaanayo garoonka Old Trafford. xiddiga garab ugu ciyaaray naadiga Brentford Bayern Mbumo ayaa lagu soo waramayaa inuu marayo Manchester United tijaabada caafimaadka maanta oo Sabtida isagoo isku diyaarinaya inuu dhameystiro 17 milyan oo kani oo ugu wareegayo garoonka Old Trafford oo ka ciyaarto kooxda Manchester. baasiga muddada dheer ee Reed Phillips ay ku doonaysa xiddiga heerka caalamiga dalka Cameroon ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku dhow yahay mid rasmi noqonaya iyadoo labada kooxood shalay oo Jimco ahayd ay ku heshiiyeen qiimaha rasmiga ah ee laacibkan uu ku aadayo garoonka Old Trafford oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Manchester United. kooxda dadka jeer ku guuleysatay horyaalka Premier League ayaa la filayaa inay bixiso lacag hordhac ah oo dhan 65 milyan oo gani. horyaankii hore ee naadiga Brentford ayayna lacagtaasi ka soo baxsanayaan. Mbumo ayaa dhanka kale waxa uu siiyay naadiga lagu magacaabo Manchester United inuu tijaabada caafimaad u marayo isagoo markaasi u saxiixaya heshiis ilaa 6 sanadood ah. laacibka loo magacaabo Bayern Mbumo 5 sano ayuu contract ama heshiiska ugu dugaya. sidoo kale waxaa jiri doona 1 sano oo ikhtiyaar ah oo Manchester ay u haysato Janis haddii laacibkani uu fiicnaado inay ka sii saxiixato. sida laga soo xigtay Fabrizio Romano waryaankan tayada badan ayaa dhameystiri doona kubiritaankiisa naadiga lagu magacaabo Manchester waxaana la filayaa maanta oo Sabti ah inuu tijaabada caafimaadka u maro laacibka reer Cameroon ee lagu magacaabo Bayern Mbumo kaasi oo Manchester muddo dheer ay xiiseysay tan iyo markii uu furmo suuq liibsiga ciyaartoyda bishii January ilaa iyo shalay oo ugu dambeyntii ay heshiis rasmi ah ay la gaartay naadigiisa Brentford ayaana Manchester waxa ay ku qaadatay in laacibkaasi ay la soo wareegto. waxa uu noqonayaa saxiixa labaad ee kooxda ay la soo wareegayso xagaagan iyadoo horey ay ula soo wareegtay Matthias Cunha kaasi oo ay ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Wolverhampton isla markaana ka ciyaartay gudaha Premier League. Matthias Cunha iyo Bayern Mbumo ayaana waxay noqon doonaan ciyaartoy wax badan ka bedeli doona waaxda weerarka kooxda Manchester United xeereedka soo socda 2025-2026. dhinaca kale kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo Arsenal ayaa la soo warinaya inay isku haystaan ciyaartoyda lagu magacaabo Xavi Simons kaasi oo ka soo jeeda gudaha wadanka Netherlands isla markaana u ciyaara kooxda RB Leipzig ka ciyaarta gudaha wadanka Jarmalka ee Bundesliga. labada kooxood ee reer London Arsenal iyo Chelsea ayaana si weyn u xiisanaya laacibkan. waryaanka reer Netherlands ee Xavi Simons ayaa si weyn waxa ay u soo jiideen indhaha kooxaha waaweyn ee Arsenal iyo sidoo kale ee Chelsea inta lagu guda jiro suuq liibsiga ciyaartoyda xagaagan iyadoo la xaqiijiyay inuu doonayo inuu ka tago naadiga RB Leipzig lagu magacaabo. sida uu sheegay Fabrizio Romano kooxo badan oo ka tirsan ama ka dhisan horyaalka Premier League ayaa si dhow ula socda xaaladda Simons balse ilaa iyo hadda wax dalab rasmi ah lagama gudbin laacibkani. sidoo kalena wali ma jirto koox wadahadalo toos ah la bilowda laacibkan ka soo jeeda wadanka Netherlands. warbixintu waxay intaa ku dartay in wadahadaladii ugu saabsanaa suurtagalnimada uu Simons uu laaban karayo naadiga Barcelona aysan ilaa hadda wax horumar ah laga sameynin. RB Leipzig ayaa laacibkan la wareegtay xagaagii hore iyagoo markaasi kaga soo qaatay Paris Saint-Germain heshiis gaaraya 80 milyan oo kani oo ay ku jiraan gunooyin. sidaas daraateed kooxda Jarmalka ah ma doonayso in ay si fudud ay uga takhalusto ciyaaryaankooda muhiimka ah. Simons ayaa ka mid ah da'yarta ugu hibada fiican kubadda cagta Yurub waxaan la filayaa inuu noqdo mid si weyn loogu dagaalamo haddii Leipzig ay ogolaato inuu baxo ama u aado kooxaha Premier League ayaana hadda isha ku haya iyadoo kooxaha Arsenal iyo Chelsea ay yihiin kooxaha waaweyn ee Premier League ka ciyaara kuwaasi oo ayagu xiiseynaya Xavi Simons kaasi oo u ciyaara naadiga RB Leipzig iyo sidoo kale xulka qaranka Netherlands. ugu dambeyntii laacibkii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang dib ayuu ugu soo laabtay qaaradda Yurub isagoo markaasi ku biiray kooxdiisii hore ee Marseille kadib xilciyaareed uu ku soo qaatay dhinaca iyo horyaalka wadanka Sacuudiga gaar ahaan kooxda Al Qasadiya
لاعبkan lagu magacaabo Emerick Aubameyang ayaana isagu waxa uu dib ugu soo laabtay naadiga Marseille ee ka ciyaarta gudaha wadanka Faransiiska ee Ligue 1 horay Arsenal iyo Chelsea ayuu Premier League ugu soo ciyaaray balse dib ayuu qaaradda Yurub ugu soo laabtay isagoo markaa City ka yimid dhinaca iyo horyaalka wadanka Saudi Pro League gudaha daawadayaal inta ay ku soo goobinaya barnaamijka faqada ciyaaraha dalsan TV barnaamijka mid lamid ah saaxiib yaan inta ugu mid nabadgelyo